السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سoo dhawaada dhammaan asxaabta inta joogan ku xiran inta cusub dhamaantii ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo 11 dabin oo ka hor istaagi kara inaad guuleysato sabab ogtihiin guuldarrooyin badan qofka soo maray intuu nool yahay waxyaabo badan oo sida uu u rabay oo kale aan u dhicin laakiin haddana marka qaar dadku waxay ku kala duwan yihiin marka ay guuldareystaan ama siday wax u rabeen oo kale ay wax u dhici waayaan sida ay ula falgalaan halka dadka qaar ay ka gudbaan oo guuldarradoodii ay wax ka bartaan oo ay ka faa'iidaan dadka qaarna taasaa burburisa oo xagga ay ku haraan saawadeed maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo 12kaas dabin in iska ilaaliso ay tahay oo kula hali kara 12kan dabin waxaan ka soo qaaday buug aan isbuucan akhrinay oo la yiraahdo sometimes we win sometimes we learn oo leeyahay la yiraahdo John Maxwell buug wuxuu ka hadlayaa in sida qofku marka qaar uu guuleysanayo kale ama marka qaar ay tahay inuu guuldareysanayo markuu guuldareysto marka dadka inay noqonayaan qof wax ka baranaya guuldarradiisii iyo qof aan waxba ka baranayn oo bartiisii hore taagnaaneen mar walbana guuldarrada iskaga sii jireen haddaba buug waxyaabo badan oo ka hadlayaa waxaan rabaa haddii ilaahdo muuqaalkan iyo muuqaalo kaleba inaan kaga hadlo haddii ay suuro gasho casharada ugu muhiimsan ee buuggaas laga qaadan karo laakiin maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo 12ka dabin ku keeni kara in guuldarradaadaas ay ku sii haysato waxa kaloo aan rabaa haddii inaan muuqaalkan ku sheego in muuqaalkan iyo muuqaalo kaleba ay jiri doonaan sababtoo ah waxaan jeclahay waxay tahay in buugaagta la akhriyo kale sidan oo kale looga sameeyo maxaa la raahdaa wixii مثلا cashara oo aragto inay muhiim yihiin oo kale waxaan isku dayi doonaa inaan saas kale buugaag usoo khulaaseeyo ama usoo koobo haddii ay suuro gasho hal muuqaalo kale inaan buugga kaga hadlo haddii ay ka ballaarto buugga uu mudan yahay in dhowr muuqaal looga hadlana in aan muuqaalo ka badan uga hadlo programmada kale insha Allah tacaala janal ka soo dayi doonana mid kamid ah ay noqoto buugaagtaas iyo akhrintooda maanta haddii aan ku bilaabo marka 12ka dabin aan idin galo waxay tahay dabinka koobaad wuxuu qoraagu yiri wax la yiraahdo dabin la yiraahdo the mistake trap waxa laga wadaa dabinka ah inaad khaladka ka cabsato khalad lamida oo aad tiraahdo mesela haddii aan khaldamo ka waran مثلا sababtoo ah qofka markuu guuleysto kale waxa laga yaabaa kalsooni ayuu helayaa waxyaabo badan oo kale isku dayo badan oo kale uu ku sameyn karo laakiin sida cagsigeeda haddii qofka mar guuldareysto kale waxa imanaysa in uu cabsado in wax kale isku dayo kale kaba cabsado oo yiraahdo مثلا oo kale khalad lamid ah oo kale ama ku dhaca taas waxay u keenaysaa marka qofkii inuu isku day labaad la iman waayo qofkina hadduu wax isku dayin saawada ogtihiin guul xagee ka imanaysaa qofka waxay ku iman kartaa in guusha waa inuu wax isku day la imaado saa awadeed inaad dabinkaas labaad marka guuldarrada ka soo baxdo kale iska ilaaliso in uu kugu reebo cabsi aad ka qabto inaad mar labaad khaldanto inaad iska ilaaliso oo mar walba guuldarrada u qaadato cashar cusub oo aad wax ka baran karto waxna ka faa'iidi doonto taas haddii aad dareento waxa laga yaabaa in aanan waxba kuu dhibin guuldarradaadii hore dabinka labaad oo qoraagu sheegay wuxuu yidhi the fatigue trap ama dabinka inaad daasho kale oo tiraahdo wax dambo aan isku dayi karaa ma jiro مثلا oo kale waa ay ku daaliso guuldarradii hore oo isla markii quusato taasna waxay keenaysaa iyadan in isku day labaad aan la iman waana wax in iska ilaaliyo iyadan mudan dabinka saddexaad dad badan la hara qoraagu wuxuu leeyahay the comparison trap waxa laga wadaa kan in aad isbarbar dhigto adiga iyo dadkana isbarbar dhigto مثلا oo kale aad tiraahdo مثلا oo kale waa la iga khibrad badan yahay waxaan waa la iga yaqaanaa adigu inaad dadka kale kaga hooseyso kale aad dareento oo aad wixii sidii ay dadka kale u qaban karaan oo kale aan u qaban karin waxa kale comparisonka khaldan kamid ah oo qofka la hari kara in uu isla barbar dhigo dad مثلا oo kale hawshan uu wado meel level kore ka maraay oo dadkii levelkiisa ahaa una isbarbar dhigin markaasna niyad uu xagga kaga imaado uu sida guul darro kale ugu sii sababo marka inuu qof waxa la rabaa isbarbar dhiga faraha badan ee aan waliba marka qaar sida saxda ku salaysnayn in uu iska ilaaliyo haddii kale waxa laga yaabaa inay taas u sababto in guuldarro kale uu ku dhaco dabinka afraad ee qoraagu uu sheegay waxay tahay dabinka la yiraahdo the timing trap wuxuu ka wada qoraaga in uu qofku yiraahdo مثلا oo kale waqtiga ku habboona maaha مثلا oo kale isku dayigiisa laado kale مثلا uu sameyn waayo yiraahdo waxaan la sugayaa مثلا oo kale waqtigan dhaamo waqti kan ka fiican inuu u iman waayo laga yaabaa oo sida waqtigiina kaga dhamaado marka inaad iska ilaalisaa rabaa oo marka ugu horeysaba isku dayada hadba sida kugu suura gasho
aad dhaqso u samayn karto. dabinka shanaad ee qoraagu uu sheegay wuxuu yahay the inspirational trap. Inspirational trap wuxuu ka wadaa in uu qofka yaraado maalan oo kale waxaan sugayaa in maskaxdeydii oo kale maalan ay u diyaar garowdo motivation fiican ama maxaa la dhahdaa dhiirigelin kala u baahanaha maalan anuun dhiirigelin haysan waxaan ma samayn karo oo dhiirigelin labaad maalan oo kale sugo. taasna waxay keenaysaa in guuldaradii hore oo kale qofkii ay meel xun gaarsiisay macnawiyaadkiisi iyo waxyaabihii oo dhan ay ka qaado. taasna waa arrin iyana aan fiicnayn qofka inay ku dhegto. waxaa laba qofka inuu hore guuldaradii kaga tallaabo isku daygana inayna ka xanibin ayaa la rabaa. dabinka lixaad ee uu qoraagu sheegaya waxa weeye wax la yiraahdo the rationalization trap. inuu qofku yiraahdo maalan oo kale fikraddii shalay muhiimka ula muuqatay ee uu shalay ka aaminsanaa inay muhiim tahay in nafsadiisa u qurxisay tiraahdo waxan wax iska caadi ah looma baahna maanta muhiim ma sii aha saan nafsadiisa ku qancay maalan inuu wixii uu samayn lahaa iskaga daayo. taasoo in badan dhacda. waxa laga yaabaa aniga hadda xataa muuqaalkan waxaan sameynayay xoogaa markaan joogay waxa laga yaabaa inaan israado nin muuqaalka muhiim ma sii iska badaaba laakiin haddana waxaa laga qofka inuu isku dayo inuu ugu yaraan waxa laga yaabaa in dadka qaar ka faa'iidaystaan hadda casharkan ama muuqaalka inay ka faa'iidaystaan marka qaar fikirka isagoo muhiim kula ahaa haddana in aad maxaa la dhahdaa marka qaar waxaa ku dhacaysa wax la raado waxaan muhiim maba sii aha waxba isku dhibin inaad istiraado. dabinka toddobaad qoraagu uu sheegay waxa weeye wuxuu leeyahay the perfection trap oo ah in uu qofka yiraahdo waxaan 100% ilaa aan ka gaarsiinayo sida ugu fiican ee loo samayn karo ilaa aan kaga sameynayo ma sameynayo. taasoo muuqaal gaar aan kaga hadlayo muuqaaladeen hore mid kamid ah iyo sida ay qofka maalan oo kale inuu wax qabto uga joojin karto. sababtoo ah wax walba haddii aad tiraahdo sida ugu quruxda badan u sameynaa ma hirgelin kartid taas ilaa in badan oo isku dayo badan oo tababarkaaga bahan. tababaradaasna qaladaad badan ayaa la soconaya. qaladaadka haddaad diido waxaa laga yaabaa inaad isku daygi samayn wayso sidaan weliga aanad gaarin heerkii 100% ama heerka aad islahayd perfect ayuu yahay inaad gaarin ayaa laga yaabaa. marka taasna waa waxyaabaha qaar dadka fikradooda hadday noqoto maalan fikrad ganacsi hadday noqoto fikrad kale fikrad cilmiya hadday noqoto waxyaabaha qofka ka joojiya ay kamid tahay haddii uu yaraado maalan oo kale waxaan la sugayaa ilaa 100% ay ka gaarayso. marka waxaa la rabaa fikradaada marka ay heer macquul oo qofka uu ku sii day karo fikradiisa dadku la wadaagi karo haddii ay gaarto inaad dadka la sheegareyso sidaana aad ku soo saarto kadibna markaa tanqiixi aad ku samayso qurxin iyo hagaajin aad ku samayso. sida ayaad kaga badbaadi kartaa maxaa la trapkan. haddii aad rabto fikrado kasii dheeraadana muuqaalka xagana idinkugu sheegay doonaa xagan ka daawo muuqaalkan ka diyaariyay qodobkan. dabinka sideedaad ee uu qoraagu sheegay wuxuu leeyahay the expectation trap. the expectation trap wuxuu ka wadaa in uu qofka yaraado maalan oo kale wixii markuu bilaabmaayo inuu yaraado waxaan sida aan moodaya ma aha way ka adag yihiin oo sidaa kaga noqdo oo nafsadiisa ay tiraahdo kale waxaan si ka fudud oo kale laga yaabaa inaa ku samayn kartay wixii loo u culuseeso kadibna uu sidaa ku wada waayo. waxaa laga yaabaa wuxuu ma culusa laakiin waxaa laga yaabaa nafsadaada inay kuu sawirtay inay wax culus yihiin laakiin haddii aad bilaabi lahayd in culayska kala tegi lahaa ayaa laga yaabaa. laakiin haddii aad kaba soo noqoto wixii aad isku dayin waxaa laga yaabaa in ay taa in badan oo waxyaabo badan oo aad qaban lahayd iyo waxyaabo badan oo aad islahayd inaad qabato way tahay inay kaa joojiso. dabinkaas marka inaad iska ilaaliso isagana waa wax aad u fiican. dabinka sagaalaad waxay tahay uu qoraagu sheegayo waxa uu leeyahay the fairness trap. dabinkan wuxuu yahay waxyaabaha isna inaad fikrad maalan oo kale kugu soo dhacday ama wax qurux badan oo aad soo gudbin lahayd oo kale maalan ay ka joogto kugu qasbay waxaa weeye in aad tiraahdo maalan oo kale maxaan ugu baahanahay aniga khasab ma ahaba maalan inaan waxaan sameeyo qof kale samayn kara looma baahno kale maalan inaad tiraahdo in marka aad tiraahdo aniga maxaa igu khasbaya inaan waxaan sameeyaba oo nafsadaada sidaas aad ugu cudur daarto ayaa marka qaar kuu keeni karta in aad isku day labaad oo guushaada qayb ka ahaa lahaa oo kale inaad ka joogsato. dabinka tobnaad ee qoraagu u sheegay waxa weeye wax la yiraahdo the public opinion trap ama dabinka ah inaa maalan oo kale ay ku qabsato aad ka cabsato dadkii kale مثلا oo kale maxay iga aaminayaan oo kale aad tiraahdo haddii aan saas sameeyo ama dadka iga aaminaan sidaas ama dadka sidaas oo kale ula muuqda taasoo ah dad badan مثلا oo kale u diidan inay waxba qabtaanba
badanaa dadka sida caadiga ah dadka kuma oga waxa laga yaabaa inayna dadka dan ka lahaynba waxa aad tahay waxa aad sheegaysa in aan maxaa la dhahdaa qofka uuna kugu mashquulina laga yaabaa si aad u tiraahdo maxaa xiran tahay maalan haddii la weydiiyo kale maanta in badan oo idaawanaysa haddii la weeyey maalan oo kale yaxay muxuu xidhan yahay maalan oo kale sida siduu u yaalay oo kale inaan qofka una ku mashquulin ayaa laga yaabaa laakiin marka hore waxa laga yaabaa inaa niyadaada isleedahay dadka ama naqdiyaan waxa aa sheega ama waxaas laga sheega ama waxaas laga sheega taasna waxyaabaha ku diidi kara maalan inaad fikradaadii hirgeliso ama wax un ku dhaqaaqdo dabinka 11aad uu kusoo gabagabeynaya maxaa la dhahdaa qoraaga dabinada waxa weeye dabinka la dhahdo self image trap oo ah inaa adiga sidee isu aragtaa aad tiraahdo maalan kale waxaan adaa ku guuleysto sidee u ekaanaya aniga dhan maalan aad nafsadaadii aad adiga burburiso oo tiraahdo maalan kale waxaa waxba uma qalo maalan kale wax uma samayn karo waxyaabo noocaas oo kale inaad tiraahdo marka wuxuu ku leeyahay waxyaabahaas oo qofka waxay keenayaan 11kan aan soo sheegay waxay keenayaan qofka inuu fikradiisii hore ama khaladkii hore ka dhacay ama guuldaradiisii hore ee u keento guuldarrooyin kale ka ballaaran taas kana adag una saameyn kara inuu waxba isku dayinba isku day labaad inuu la iman ku keeni kara wuxuu kaloo qoraagu buu ku sheegayaa maxaa la dhahdaa sidee guuldarradaada ugu bedeli kartaa guul adigoo wax ka baranaya maalan kale guuldarrada kugu dhacday haddii aad wax ka barato aad casharo fiican ka qaadato kala soo baxdo waxyaabaha meesha lagaa qabsaday qaladka sidoo ku dhacay waxyaabahaas oo hadda isweydiiso in aad maxaa la dhahdaa kaaga qiimo badnaa karta maalan guuldarradii guul inay kaaga qiimo badnaa karto wuxuu sheegaya waxyaabo badan oo kale kamid ah maalan oo kale qofka inuu guuldarradiisii oo kale wax ka barto inay kamid tahay maalan oo kale inuu tawaaduc leeyahay maalan qof isla kibirsan oon ahayn ama kibirsan oo maalan qaladkiisi inuu wax ka barto aan ogolayn in qof waaqici ah oo yahay oo waaqiciisa maxaa la dhahdaa waaqici ah oo sidii wax u jiraan oo kale wax u fahmi kara inuu yahay waxyaabo badan ayuu sheegaya qof inuu mas'uuliyad leeyahay mas'uuliyad qaadi kara inuu qofka yahay waxyaabo badan ayuu sheegaya muuqaalo kale insha allahu tacaala hadba buugga intaan kasii gaaro markaan dhammeeyana muuqaal haddii ilaahay ma ka samayn doonaa isleeyahay waxyaabaha muhiimka ah ee buugga aan maxaa la dhahdaa uu ka hadlay waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan muuqaalkan intaan muuqaalkan lamid iskaga doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu